marka heesaha u dhuman dhigistaa aad iyo aad baa u dhigistaa nin aan si gaara u taageero saaxiibo u nahay runtii aad u qadariyo khiyaara oo maaragtay laga yaabo dadku markay shaashada ka arkaan shakhsiga dhabta ah iyo muuqaalka halka uu heesaha ku jilayo bil xaqiiq isma laha dadkuna laga yaabo inay si kale u haystaan ninkaas waxa weeye anoo halka salaamaya waxa furtay 2011 xilliga waxaan ahaa nin wariye TV u shaqeeya waraysiyo aan xilliga qaadi jiray oo madax badan oo Soomaaliyeed xataa ay ku jireen runtii aad waxaan u wululaa anoo aan rabin inaan magac dhabin oo dhowr jeer hadda iga maqasheen gabaraan arkay oo hadda YouTuberada oo ay aad dadka ugu degan oo maaragtay waxyaabo oo anu inkastaan wallahi aad u wada daawan laakiin TikTok aan arkay iyadoo la soo jirto oo la soo dhigo marka assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba channelka daawanaysan waa channelka Promoter Amore Official channelka hadaad ku cusubtaa fadlan subscribe sar hadaa horey nagula joogtana channelka si share garee si asxaab badani ay u gaarto channelka maanta waxa ku casumnay anagoo waliba joogna maqaaxidiisa walaalka Shiine Culi oo aad wada garanaysaan isla markaana ah oday Soomaaliyeed isla markaana degan dalka Jarmalka walaalkay Shiine Culi ku soo dhaw channelka Promoter Amore Official waa dhawahay Amore aad iyo aad ugu mahadsantahay inaa maqaaxidaada igu casuntay farxaday ii tahay hadhowdii CV-ga ku qurxsan doonaa meelaha ka hadlay TV-yada iyo meelaha maartay baraha caanka ah aan ka soo muuqday TV-ga iga qurxinaysa odaygu wuxuu ilaaway sidoo kale inuu YouTube-ka ku soo daray Facebook marka Facebook-gana Promoter Amore waxaan leenahay hala follow gareeyo mar walba taasina waa ka rabtaa follow iyadana hala saaro teela kale oday Soomaaliyeed baa tiriye odayga waagaan yaraa baan jeclaan jiray inaan dhaho oday Soomaaliyeed baan ahay hadda markay deediga timi wiil Soomaaliyeed aan jecelahay marka taa waa la soo dhacaray waxa la igu caayay odaynimadii oday Soomaaliyeed iyadoo xaqii sharafta karaamada hibada hadalka waxa aan laga eegayn de'un laga eegay hadii tii de'da tahay odaynimadaasi kuma jiro tii kale akhyaarnimada ma aragtay aftahanimada garyaqaannimada odaynimada taa waa ogolahay ما أنا أضيف سوماليات وحكوجي يري وحاول ما دام أنا جينا نسكن كنت هرن أضيف سوماليات واحد لكن أنا وحاول سيد الصحراء على قلنا كوجود وجينا ما تحاول تبرد سوماليات أضيف أطهي يهجمي أطهي وحاول وسكوكيني ده أنا سكوك كنتي هذا أنت نبضنا وهذا داوان الشينو عليه ما تقانان وحيابا فربضن أيها لجيابا شينه وحرب سؤالين قارينا في فيديو waliba maartay anu maqaayadaada joogo ayaa YouTube-kayga maartay kugu casuumay dad fara badan maartay jecel yihiin inay ogaadaan horto waa kuma Shiine Culi haddana aqoon iyo inta sano u jiro iyo waxyaabaha su'aalooyinkaas ayaa weydiin doonaa daawadayaal su'aasha ugu horeysa Shiino waxaan rabnaa inaan ogaano Shiine imise sano ayaa jirta horta Soomaalidu waxay tiraahdaa war dhafoor buu ku yaalaa qofka deediisa hadda halkaas ay ku taala inkastoo waagii damo dadku la iska nastay sida loo kala jeeb roon yahay loo kala dhaliiraysan yahay aniga dadka waxa hoda badana waa okyaala hadalka badan lafta hore aan sheego waxa iri 20 jir la fila tagtay baan ahay anigu ma weyni hadda ma yiri koob iyo 20 hadda galay alxamdulillah in la isu hambaliyeenayo baarajeenaya haddaan galay madaxa la galay maalin hore toonin la oran jiray nin oday halka iga wareysanayo maqaaxida isagoo maartay Malaysia aan maleynay inuu joogay Yaxya Xantar maalinta 19 aan jiray 2 sano ka soo ritay 20 jira hadda waa 20 sano jir sano idinku sheegay waxa weeye 20 jirka adag bir la tagtay laf darkaasi uu hodan ahay waa tahay su'aashaas waa ka sii gudbi doonaa Shiino YouTube-ka maartay hadda kulli waxa weeye waxa dhihi karaa waxa ta YouTuberska ugu horeeya ayaa ku jirta Soomaalida YouTube-ka xilma ku soo birtay horta YouTube-ka laba channel aan ku leeyahay channelkaygii hore waxa furtay 2011 xilliga waxaan ahaa nin wariye TV u shaqeeya
waraysiyo aan xilligaa qaadi jiray oo madax badan oo Soomaaliyeed xataa ay ku jireen odayga Farmaajo baaga muddo ah Muuse Biixi baaga muddo ah Sheekh Shariif oo markaa madaxweyne ah dad noocaas madax noocaas baa soo gelin jiray oo TV-gana qayb satellite-ka laga sii deyn jiray anna YouTube channel-kaas iska gelin jiray waaga Soomaalidu ma isticmaali jirin YouTube-ka aniga laftigaygu ma aanan aqoon Gmail aan sameystaa igu maartay igu khasbay waa sax marka saasaan u isticmaali jiray runtii de in lacag laga helo maan ogeyn beriga in lacag u lahaa in kale ma kala garan karo halkan dad badan ha ka daawadeen igama ahayn ee waxa ku xafido oo ku guro waxay ku ahayd yani meel maarta waxa weey waxa documentary ahaan ugu kaydsato maadaama qofriyaa waxaan hadda markaan dib u eego muuqaalada waa ay xiran yihiin markaan dib u eego waxa laga yaabaa qaarkood 30 daawadeen xilliga ku badnayd laakiin waaga dadku Soomaalidu like ta ma aysan aqoon subscribe ka ma aysan aqoon waxa dhan ma aysan aqoon kan aan hadda isticmaalo waxa furay 2015 shiina cule ay ku qoran tahay marka waxaan u furtay halkanaan imi waa inaga isku arkaynay magaalada Bilfield oo aan maalinta duubiyay marka 2000 waxay ahayd 15 December bay ahayd marka waxaan u furtay waxay ahayd حتى marka lacagta in laga helo ma fahansanay waxaan u furtay waxay ahayd waxaan jeclaa website-yaan qori jiray inaan website-kayga warar intaan ugu diyaariyo aan soo gashado waana soo gelin jiray reaction aan u sameyn inaan soo fariisto ka hadlo baan u sameyn just inaan warar aan maartay adduunyada iyo waxa ka sameeyay aan soo geliyo kuwii markaa soo gelin jiray soo geliyay waxa dhacday in uu lacagtii lay ogolaaday in code la ii soo diray حساسي تهاي وحي أد وما برارك سنين أديكو لبدي كون يو سديد يتوانكي بشي مي بان أد وبرارجي جون شقدي سام بلعبي أنتي كده ما يصير سيدا دتكو استعمالها باو استعمالها ولو أنا سنة أنا قاعد أنا أقبل بدنينه أنا مارتي أنت بدن أنا يوحنا يا مرق قارقود بلي أنا حسوق جلن إن أنا أسبوع حسوق جلن ومعناه هؤلاء كله تويسكا مارتي أسكا مش مشغول أد وحرجينا هنا فهمتين وحاول يوارو عدا يوتيوبر مارتي الصومالي أنتوا تبدن يحد عمر سنة ولا بدك كل شيء تماكي لحي تماكي وكسر بيرة من سدي تماكي بقى حد وارو عدا الصومالي وحيد وارو عدا صحافة شينو يوتيوب كله ودا وتا أنت وقفر بدن يوتيوبرز كصومالي ده ولو هذا الصومالي هذا يوتيوب كله وصل ودا بطي بالمانتا يا دسليه كرتا يوتيوب كي أي تاجرتا هرتا دad badan aan taageeraa waxaa wiilasha marka la dhaho wiilal iyo gabdho horta dad badan aan taageeraa dhiiqa rabta inay geliso ujeeda ma fahantii oo dad badan oo aan ku xiranahay oo akhyaara oo runtii aan aad u jecelahay oo maaragtay baade waxa laga yaabaa inay odaygii ka xumaadaan laakiin de qofkii reer magaala waxa ila tahay waxaas way iska garan karaan horta anigu markaan bil xaqiiq ku sheego TV-ga halka yaala inaan shito oo daawado waa igu adagtahay aniga ma ihi dadka oo wax daawada inta badan bil xaqiiq markaan ku sheego laakiin waxaan ahay qof kasta wax iska leeyahay hobby iska leeyahay aniga waxaan jecelahay laba wax oo ah inaan wax qoro iyo inaan wax akhriyo waayadii dambe marka waagii hore bacdama website ka shaqeyn jiray quraanka aad u badnaan jiray hadda quraankayga waa yaraaday aad wax ma qoro laakiin hadda waxaan akhriyaa aad baan wax akhriyaa waxyaabaan akhriyo ma aha waxyaabaha Soomaalidu badan aan soo qorto ma ahaba waxyaabaha taariikhda oo kale adduunyada oo ka dhacday oo kale waxyaabahaasaan aad u akhriyaa maalintii waxa laga yaabaa iyo wararka adduunyada aad ma daawashadooda uma badni laakiin akhriskooda u badan yahay dad badan waxa laga yaabaa inaysan aaminin celis ugu yaraan maalintii waxaan akhriyaa aniga 200 oo page celis maalintii ugu yartahay waxa soo iska taariikh maaragtay warar waxyaabahaas iska waxa weey okiyaalaha bilaash maaragtay marka YouTuber badan daawada mararka qaarkood kuwa aan arki jirin iga soo horbaxa dad badan ka helaa dad badan maaragtay ka helitaan qof halka ka hadlayay isagiyo si toos ku soo galay u yimaaday isaga u taala dad badan oo kale oo YouTuber oo aan daawado oo tiro badan waa jiraan qofkii maalinta wax xiisala ka hadlaya oo ama isagoo la soo share gareeyay aan arko ama qacda hore aan la kulmaba waa daawadaa marka dadku dad Soomaaliyeed weeye qof kasta
wixii uu ka hadlayo waa wuxuu dan mooday waa sax mararka qaarkood qofku markuu hadda aniga iga soo hadlo oo laga yaabo shiina maalinta la hadal hayo inuu ka soo hadlo macnaheedu maaha inuu neceb yahay macnaheedu maaha inuu rabo inuu maartay saxada iga saaro waxa laga yaabaa dantiisa gaarka inuu ka arkay maqaaxida inuu ugu shidanayo wax nacayb oo gaar inuu sinay jirin dad badan oo igu dhagan marka arko waa iska fiirsadaa qosol aan ku taafiirsadaa sababtoo ah qofka waxa ogahay haddaan bariis ka soo horbaxno ama haddaan markaa wuxuba inaan wax maana jirin laakiin qofkaas muhiimadiisu ay tahay meeshiisa inuu iska shito kii ay ka tahay talo inkastoo de talo public la soo fariisano nin walba dadku caqli leeyahay qof markuu hadlay hebel halka waxaan ka leeyahay saasaan ka leeyahay odagu meeshiisa shitanaya hebel hadaa harto inaa wax tiraahdo lambarkiisa raadilayd baasatirkiisa ilayd marka dadka dad Soomaaliyeed waaye wallahi waa iga wada galeen ma sha Allah waa tahay kulli shiino waxa jirto maartay wiilal horta iyo gabdho walo hadda barihi dambe gabdhaha Soomaaliyeed ee YouTube ka soo bateen su'aashaasna maartay sikadiisa aan kaaga dhigo waxaan anoo maartay waxa weey deeq lugaan inaan ku gelinayn gabdhaha Soomaaliyeed kulligoodna aad daawatid aan ogahay waxa weey YouTuberka dhinaca gabdhaha marka loo fiirsho gabadhii ayaa daawataa oo taageertaa runtii gabdho badan baan daawadaa gabdhuhu ma kala dhacaan marka waxba kala qaadqaadi mayno odayga taas waa ka cudur daaranayaa laakiin gabdho badan aan daawadaa sharaf leh barnaamijyo soo daaya gabarii waa hooyo aad iyo aad gabar marka aragto waa hooyo marka gabdho badan waxa laga yaabaa aan ku faraxsanayn inay YouTube ka hadlaanba inay jiraan laakiin marka danta duruufta iyo waqtiga ay u geysay kuwa badan oo laga yaabo hibe ku jirta oo ka dhex waxayso inay u soo galeen kuwaba maaragtay marka ujeed dadku isku hadaf maaha marka gabdho badan baan fiirsadaa runtii aad ugu taxanahay waxyaabahooda aysan isheegin marka gabdhona badanaa wax ka dhaxeeya xifiltana ka dhaxeeyo ma rabo inaan isu jabiyo waa ka baxnay waa tahay intaas ayaa kaga gudbi doonaa dhinaca YouTube markii laga yimaado shiino oo dhinaca fanka loo soo jaleeco maartay hadda waxa weeye fanaaniintu isku ma jiraan waxa weeye fanaankee taageerta fanaaniinta caadiga ah oo maartay waxa weeye kuwa raabariska ay dambeeyaan kuwa caadiga ah fanaaniinta fanaankee ayaa ka taageerta dhawaani buu ahaayeen horta ana waxaan ku sheegaa nin heesaa inta badan daawada mi gaariga markaan saaranahay waa shitaa mararka qaarkood qofkii heestaa qaaday heesiga gadan baan qofkii qaaday iyo iyada isu aqoonin taariikh badan aan iga soo heesa aan ku celceshanayo wartiisa lahayd ku celiya qof qaado aan aqoonin runtii fanaaniinta waa wada dhageystaa ma kala dhacaan dad badan oo qiimo leh way baa ka buuxa iyagoo dhan qiimo leeyihiin sharaf iyo karaamaan u haynaa laakiin fanaaniinta runtii nin baa jira aan is oran karo aniga markaa maartay aragtideeda ka hadlo codkiisuba waa mid gaaraba oo aan aad u daawado inkastoo waayadii ayaami dhowto heesama soo saaraan u malaynayaa kumaan arag ayaan tan ninkaas waxa weeye waa Qamar Suugaani wax aqoon shakhsiya oo gaara oo weyn aan suleenahay mar inaan isalaanay oo u malaynayaa ninkaas heesiisa badan kaaga dhigi lahaa haddaan karo biyo macaan qaabku u dhaho mucjiso gooni ah ninka wallahi heesiisa aad maartay u daawadaa waxaan xasuustaa isaga iyo heesiisa isuma aqoon jirin hadda ka horeys waxa jirtay haddaan dayaxa ku dulgeena heesa anima qabto moogta haddii may quruxdaada dayaxa bedamin lahayd heesta isaga isuma aqoon jirin gabdhaha waxaan ku iri geeya heesta ku celiya heesta dad gaariga ila saarna heestiyaa la geeyey markaasaa waxa la heesta cid qaadam taqaaniya ma Qamar Suugaan halkaas marka ninka waa aada maartay heesiisa wuxuu leeyahay macna dad badan oo kale oo aan daawadaa jira oo aad u xuseeyo oo gaarigayga iyo ka damin laakiin macnaheedu ma hadda odaga xusay ina iyaga aanan jeclayn u xirnay in ko dhan oo insaan waxa way dhamaantiina sidoo kale aad idin salaamayna Qamarna sidoo kale abti aad baa ku salaamaya
maaragtay dhinaca fanaaniinta raabariska markii loo yimaado walow beriyihii dambe Soomaalidu raabariska maaragtay ay waxa weeye aad u dhageystaan ama heesa garbaash ha noqoto ama dhinaca raabka Soomaalida beriyihii hore waxa weeye lama aqoon way jirtay fanaaniinta inay maaragtay waxa raabariska Soomaalida ku jireen laakiin hadda xilliga hadda la taagan yahay fanaaniinta raabariska ayaa aad loo dhageystaa fanaaniinta raabariska oo maaragtay waxa weeye oo qaato fanaankii ayaa ka taageerta fanaaniintaas nin odayga horta iyaga dhan waa dhageystaa oo waayadii ugu dambeysay aniga laftigoodu dhankooda u batay haye waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah hees baan aad uga helay haye waxaa la yiraahdaa TikTok bay ku jirtaabe haye nin Ida Boss la yiraahdo baa qaaday ya haye Ida Boss ima gaartiin baa la dhahaa ya ima gaartiin waa hees oo aad u cajiiba ya aad ninka marka heestii aad baan u dhageystay xataa intaan raadiyay oo TikTok baan ka arkay aan YouTube ka doonay aan comment ka bixiyay aad waxa la yiri ninku halka hees buu leeyahay ninkana war ninka waxaan leenahay meeshu waa ku baahan tahay halkii hees shiina culay wallahi waa xijii hadii hadli karto waxay oran lahayd ya shiine hayga joogo oran lahayd ya hadii saa oran lahayd moogtay ima gaartiin waa dhintay miyaa maqasheen kingiga khalad weyn ka gasheen waxna casuuya kingiga khalad weyn ka gasheen ya beentiin ima gaartiin marka ninka odayga waxaan leenahay soo laabo waa leenahay heesa kale noo soo qaad aan uga helay marka heesaha u dhumaan dhageystaa aad iyo aad baa u dhageystaa nin aan si gaar ah u taageero saaxiibo u nahay runtii aad u qadariyo khiyaara oo maaragtay laga yaabo dadku markay shaashada ka arkaan shakhsiga dhabta ah iyo muuqaalka halka uu heesaa ku jilayo bil xaqiiq isma laha dadkuna laga yaabo inay si kale u haystaan ninkaas waxa weeye anoo halka salaamaya liil baliil waa saaxiibka isma oran karayo oo uu xilmayo amoore saaxiibihiin oran mayo muuqaalkan uu daawanaya oran mayo laakiin heesiisa inaan daawadana heesaa dambe dhawaanay ugu ahaayeen mar dhexdaasaan bilaabay hadda heestii ugu dambeysay oo ahayd ya adaa yiri calankaaga ha taagnaado waa xiji heesta heestii kale waa kare xataa waxa jirta hees aan anigu iri warmaano igu darso oo ku jiro waa jirta dadkii ma arag baa walina faartay soo qabanay hees baa jirta xataa aanu maartay aan ku jiro marka ninka odayga ah aad aan u taageeraa halkana waa ka salaamaya waa nin odaya walaal jira ah karaamo korkaaga ha ahaato waxaan leeyahay wiilashu markay leeyihiin waxa loogu duceeyaa koroweynow kursi badan dhaaf waa ka weynahay marka waxa ku leeyahay koroweynow kursi badan dhaaf aad horu soco ayaan leenahay salaad maxamed cali liil baliil masalaada la dhahaa warna magaca kala u naqana soco kaama uu sheegni kuma sheegin hadda bal waa yahay marka dhinaca maartay waxa wiilasha aan ka soo gudubno waxa weeye fanaanadee aad taageerta anagu waliba ku jirno qaybihii dambe ee barnaamijka polisiga fanaanadee aad taageerta ileen gabdho badan baa jira fanaaniin ah bal fanaanadee ayaa taageerta adoo waliba su'aashaas maartay waxa weeye aan noogu cudur daaranin hal fanaanad ku cimaamad inaad taageerto aad dhageysato ay tahay waa favorite maartay fanaanad aad taageerto Soomaalida niyo gabdhaha lama kala xulan kale haye iyaga dhan baa dad cajiib ah runtii waxaan aad heesaheeda u daawadaa تني وما وريق دا وروا كعذر دا انت هيك دا والله كعذر دا هيك دا كسعوا نيو كسعوا بدل دور يعني كسعوا نيو انا دقيقه كله سعوا dhinaca gabdhaha sidoo kale markii labaad way idinkaga cudur daarto wayna dareemi kartiin gabar walba Soomaaliyeed inuu xushmad gooni u hayo asigoo waliba kala qaadqaadeen waxa dad badan wallahi mid kale dad badan asxaabna moqta wada xiriirna waxa laga yaabaa qaarkood in tartan ka dhaxeeyo marka deena isu jabiyo marka dhiiq lagu haygelin baa leeyahay rag waa caadi nin rag hadda liil bal marka dooranayo marka dooranayo qamar suugaani maba isna qaanaba raga isna qaano ajira moqtahay oo fanaaniina marka waa caadi weey soo okay waa tahay taa ka soo gudubna shiino dhinaca fanka waa kaga soo gudbi doonaa waxaan soo dhaadhici doonaa dhinaca maartay siyaasadda maadaama tahay maartay qof youtuber haddana wariye hore soo ahay oo dhinaca siyaasadda ka faaloodo wadanka Soomaaliya waxa ku soo wajahan doorasho shakhsigee ayaad isdhihi lahayd
uu hogaamin doonaa 5 sano ee soo socota? horta aan kuu sheego aniga dee ma ogtahay hadda khiyaar aan wax ku doorto male oo baarlamaan baa wax dooranaya aad iyo aad rag badan baa tartamaya haye oo maaragtay rag badan oo saaxiibaday ay ku jiraan aad iyo aad isnaqaano soo wada shaqaynay qaarkood maaragtay xiriir aad u fiican aan aad leenahay iyo aad laakiin anu aan been kuu sheegaynin haddaan maanta xildhibaan ahaan lahaa hadaad oo food aan cod dhiiban lahaa aad iyo aad waxaan u codayn lahaa xasan cali khayre xasan cali ra-iisul wasaare hore aad iyo aad ra-iisul wasaarihii hore waa nin aan aad maaragtay u bartay 2 jeerna waan wada kulanay kulanteemba muddo badan oo 100 jeer ku siman taleefon aan ka wada hadalay runtii waxaan oran karaa waa Soomaalinimadii oo qof ah waa nin aad u karti badan u dadaal badan aad iyo aad albaabkiisu furan yahay ixtiraam badan Belgium ka mar ugu tagay sida maaragtay wuxuu ku soo dhaweynayaa sidii de madaxda kale waxa lagu yaqaanaa isla weyni inay horboodayaan dad 4 qof oo family-gooda ah oo looga mari kareynin Soomaali oo dhan saa ugu xirnay marka hadaan anu hadda cod ma lihi laakiin hadaan codeyn lahaa oo cod lahaan lahaa waa u codeyn lahaa waxa kaliya hadda awoodaha weeye inaan maaragtay taageeradeeda u muujiyo waa aniga halka uga muujinaya sidoo kale ina u duceeyo wallahi waa u duceeyo haddana waa u duceynaya ilaahay ha u fuudeeyo jagadaana haddii dalkana ay khayr ugu jirto inuu madaxweyne noqdo isagana ay khayr ugu jirtana ilaahay maxaa ku yiraahdaayay ha ku guuleeyo ما شاء الله maaragtay xasan cali qeyrna sidoo kale waa taageera waxaan leenahay maaragtay go forward hor u soco inta si ka badan maaragtay ayaan ku reeji doonaa hadii uu ilaahay yiraahdo wadanka Soomaaliya adigoo kale ayuu u baahan yahay waa tahay shino qeybihii dambe ayaa maaragtay waxa way barnaamijka isla soo gaarnay daawadayaal waxaa jiro shino youtubero oo intii ugu dambeysay waxa way youtube-ka ku soo biiriyay maxaad ugu dambeyn youtuberska Soomaaliyeed dhinaca dhalinyarada ah waxa way maxaa kula tali lahayd waxa kula talin lahaa habeen kasta markaan seexanayo hadii aan soo xasuusto waxaan ku fikiraa sidii aan youtube-ka uga bixi lahaa oo ilaahay ugu ogyahay maaha waxaan sheegayo youtube-ku waa mindi 2 af leh dhinaca wanaagana qofku waa adeegsan karaa dhinaca xumaantana waa adeegsan karaa laakiin meel macnaha de qofku kulay anigu de waxaan soo haystaa nin diin leh dhaqan leh maartay damiir leh ahay marka kulay anigu waxaan is dhihi karaa boqolaal camal oo aakhiradaada iyo adduunkaaga kaaga dhaamay baa jiri karaa oo jira oo la hubaa sida markaan leeyahay maaha dadka inaan ka hawl badanahay waxa laga yaabaa inaan maaragtay xataa hadalkaygu aad maaragtay dad badan marka loo eego uu dhowrsan yahay haddana intaa laftigeeda haddee marka aad tahay qof xisaabtamaya oo adduunyadu intuu joogana isxaabinaya aakhirana oo waxa ka dambeeya haddii taa laftigeeda ma ogtahay waa isweydiinaya maaragtay mar badan waxa ku haynaysaa maaragtay walwalan ku haynaysaa dambiga ugu yar oo meesha ka soo gaari kara waxa waaye waxa laga yaabaa barnaamij samaysay qof salaad u taagnaa inuu intuu daawado oo kaga habsaamo oo salaadii ay sidaa ku dhaafto dad dartaa inay socayaan ha dad aniga kuwa aanan dirsan oo waxa jira maalin walba aniga dartay dad u aflagaadeynaya kuwa qof kale uu soo dirsan laakiin iyagoo qofka ka socda anoo og inuu soo dirsan ba inay maaragtay waxa laga yaabaa soo aflagaadeeyaan ama ay dad kale u bahalkayaan oo iyagii laftigooda aakhiradooda sida khatar ku gasho baa laga yaabaa marka anigu ma jecli meesha horta inaan ku sii nagaado dadka dhalinyarada oo ku soo biiray waxa leeyahay kulay qof walba danbaa meesha keentay ma idin diidiyo oo ma ka jooga oran mayo laakiin qof walba iyo meesha isku ilaawin yuuna ku talax tagin qofku aakhiradiisana ha ka fikiro adduunyadiisana inta la joogayo waa maalmo kooban in loo soo jiro ma yaqaan inta uu joogo runtii aad waxaan u wululaa anoo aan rabin inaan magac dhabin oo aan dhowr jeer hadda iga maqasheen gabaraan arkay oo hadda youtuberada oo ay aad dadka ugu degan oo maaragtay waxyaabo oo anu inkastaan wallahi aad u wada daawan laakiin TikTok aan arkaa iyadoo la soo jirto oo la soo dhigo marka xadde ilaa iyo xad wax oo maaragtay xad ka baxa ku hadlaysa oo ama gabar walaasheeda ama qof walaalkeeda cirdigiisi sharaftiisi karaamadiisi iyada laftigeedii baa waxay isku tahay dhibaato isku ah oo aan isdareysanayn adduunyadeedii maaragtay weerar ku ah oo aakhiradeedii maaragtay duulaan ku ah marka
qofka oo kale macnaha ma fiicna bulshada dhexdeediina wuxuu ka noqonayaa tuka cambaarle marka dadka dhalinyarada waxaa leeyahay kaalaya qof kasta talentskiisa hala yimaado maxaa maanta laga daawan karaa oo shilmaad aad ku heli kartaa qofkii ku fikirine ha ka fikiro maanta haddii wax logic ah oo loo qaateena oo dadkuna ay kugu daawan karayaan cidna aadan ku dhibaynin haysidkeen maalinta weydina iska dhaaf wasabaha keentay inaan usbuuc aniga 2 ama 3 video وانا هذا كل waxa way mataqaana youtuberska kale horta waa ka duwan tahay muqtashino waxa way youtuberska kale inta badan maalintii laba video ama hal video ama 3 video soo dhigaan laga yaabaa laakiin adiga isbuuci ayaa maartay waxa way laba video ama 3 video oo xamaasadeedu wadato ayaa soo gelaysa taasna youtuberska Soomaaliyeed waa ugu duwan tahay waxa way maartay guniga gabagabo gunaanadkii maartay ayaa isla soo gaarnay barnaamijkii waraysiga halkaas ayaa ku soo gabagabeyn doona waxa weeye intaan soo gabagabeyn waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed ugu bishaareeyo u sheego inaan ninka qaantiisa iska guday 5 jeer u baahneen ugu soo dhaweeyay maanta magaaladeeda ku soo dhaweeyay marka qaantaadii waa ka wada jiro waxa oran jiray warama adduunyada ka carowda adoo ninka maaragtay aan marti qaadin marka ma sha Allah waa nin odaya hadda TikTok waxa ka socday challenge la leeyahay muxuu ahaa waa quruxdii qof ya waa dhiiqadii qof marka ninka waa Soomaaliyeed qof ya waa gobonimada qof waa nin oday waa kartidii qof waa dadaalkii qof waa saaxiibtinimadii qof marka waxa leeyahay ilaahay ku sharfo Facebook iyo YouTube meel kasta oo aad ka hadasho meel kasta cagta dhigtaba ha ku cidlo subscribe tahay follow tahay Allah ku sharfo waxa way maartay shiino oday Soomaaliyeed ma soo amaanay ana walaadii amaanay kaamirada marka la damiyo amaan ana ku amaanay walaadii amaan waydi salaana odayga like share comment subscribe follow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.